balse waro 5 sano kadib waxaa dhici doona dhammaanba social media uu isbedeli doona sida la shaaciyay. Facebook waxa loo bedeli doonaa metaverse, waxa la hirgelin doonaa mashruuca metaverse. dadkoo dhan waxay ku noolaan doonaan duni khiyaaliya, waxay jeclaan doonaan dunidaas khiyaaliga iyagoo ka doorbidaya tan dhabta. dhammaan dadku waxay noqon doonaan maqana jooge, dad wada xawilan iyagoo ku jira noloshaas mugdiga ah. waxay ilaawi doonaan dadkaasi dhimashada. xitaa mashruuca metaverse markuu yimaado, qoys kasta oo hal guri ku wada noolaa waqti iskuma heli doonaan. waxay noqon doonaan dad jir ahaan u wada jooga laakiinse maskax ahaan u kala maqan. adduun iyo aakhirana iyadoon loo shaqaysan ayuu qof kastaana dhiman doonaa 5 sano kadib. runtii waxaad weydiinaysaa waa maxay metaverse? sababta saameynta intaas dhan la eg u yeelanayaana maxay tahay? mashruuca Facebook loo bedeli doono ee metaverse sababta ku kalifaysa in dhammaanba dadku saasoo dhan u wada dhaqmaan iskuna bedelaan maxaa sababi kara? daawade sad u ogaatid metaverse wuxuu yahay nala joog ilaa ay dhamaadka muuqaalkan. sidoo kale like saar videogan haddii uu in yarna ku anfacay, la wadaag asxaabtaada iyo familygaaga adigoo share garaynaya. gebi ahaanba waxaa la bedeli doonaa qaabka uu shaqeeyo Facebook. arrinkana waxaa shaaciyay mulkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg says in 5 years, Facebook will not be the social media company as we know it. It'll be a metaverse company. So I think of the metaverse as the next generation of the internet. metaverse waa mashruuc la hirgelin doono oo ku cusub dhammaanba dunida teknolojiyada. si aad internetka u gasho marka hore waxaa qasaba inaad haysato mobile ambase computer. sidoo kalena waa laga maarmaan inaad daatada furato amba wifi aad isticmaasho. intaas kadib waxaad noqonaysaa qof si toosa mobilkiisa uga isticmaalaya social mediaha. dunidan aynu joogno dhammaanba dadku waxay saaxiibo badan ku leeyihiin waa internetka, halka nolosha dhabtaana dadka qaar aysan wax saaxiiba haba yaraatee kuba lahaynba. waxaad arkaysaa family hal guri wada jooga, hal goob wada fadhiya, haddana aan isla hadlaynin. sababtoo ah qof kastaaba wuxuu ku mashquulsan yahay isticmaalka social mediaha. waxaa la yaab leh oo aynu aragnaa haddii aad la hadasho qof waqti xaadirkaas ku guda jira isticmaalka social mediaha oo mobilkiisa haysta in waqti xaadirkaas uu ku jawaabi waayo amase uu kugu xanaaqaba. waxaa dhici karta xitaa qofkaasi inuuba maqlayninba waxaad ku hadlaysid. imise jeer ay taas kugu dhacday amba aynugu wada dhacday? dhammaantayo waynugu wada dhacdaa. waayo isticmaalka aaladaha kala duwan ee internetka waxa uu inoo noqday balwad aynu la qabsanay, qofnaba uusan iska dayn karayninba. dadka qaar noloshoodii oo dhan waxay kusoo koobeen isticmaalka social mediaha. taas bedelkeeda imikana waxaaba la hirgelinayaa mashruuc kale oo kasii daran, saameyn weynna ku yeelan doonaa dhammaanba bulshada. heer waxaa la gaadhi doonaa in la waayaba qof shaqo taga iyo qof kale oo waxbarashadiisa taga. xitaa qoysaska halka guri ku wada nool ay waqti isku waayi doonaan. waxaad isweydiinaysaa siduu u shaqeeya mashruuca metaverse. markaad Facebook soo gasho waxaa laga maarmaana inaad gacmahaaga ku dhaqdhaqaajiso mobilkaaga si aad u aragto bastiyada ay soo dhigeen saaxiibada amase dadka kale akoonada kale isticmaala. sidaasi lamid ah haddii aad kool kula hadlaysid asxaabtaada waxaad u baahan tahay inaad mobilka dhegta saarto amase aad gashato earphone si aad isku maqashaan. haddii aad video kool kula hadlaysidna keliyata waad arkaysaan laakiin isma dareemaysaan. haddaba mashruuca metaverse sidaasuu ka duwan yahay. mulkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg gebi ahaanba wuxuu joojin doonaa habkaas uu u shaqeeyo Facebook imika iyadoo loo bedeli doono metaverse. inaad Facebook isticmaasho keliya waxa kaa xigi doonaa muraayada indhaha la gashanayo. waxaad dhex geli doontaa duni kale oo si casriya u dhisan, duni qurux badan oo ah dunida social mediaha. gaadhi ayaad ka dhex iibsan kartaa nooc walbood jeclaato, sidoo doonto ayaad dunidaas kale ugu dhex noolaan karaysaa. sidoo kale guri kastood jeclaato ayaad ka dhex iibsanaysaa dunidaas khiyaaliga ah, adigoo ugu noolaanaya dabaqada ta ugu saraysa uguna quruxda badan leh. laakiin waxaasoo dhan waa khiyaali oo markaad muraayada iska saarto waxaad arkaysaa inaad noloshii dhabta ahayd ku jirto. metaverse waxay ka dhigan tahay qof kasta inuu riyo dhex geli doono, riyadaas isagu gacantiisa ku maamulanayo meeshuu doonana adduunka ka tegayo. xitaa saaxiibada ayaad is arkaysaan idinkoo welibana hal meel ku wada ballamaya, iskuna dareemaya sidii dad wada jooga. meel kastood rabtaan, xaflad kasta iyo goob kastood jeclaysataan inaad tagtaanba waad ku raacaysaan dhammaantiinba. waxaad ka qayb geli kartaan xaflad kasta oo lagu dhex qabanayo social mediaha. qof kastood iska soo horbaxdaan isaguna waa qof xaqiiqo ah oo jira sidaada oo kale ayuu isaguna social mediaha u isticmaalaya, welibana metaverse ayuu kugula dhex jiraa.
qaab kastoo jeclaato ayaad u libisan doontaa adigoo xitaa dharka ka dhex iibsanayana xaggaas. waxaas oo dhan waxaa kaa xigi doona keliyaata inaad isticmaasho muraayada loogu talagalay metaverse si aad ula kulanto dhammaanba asxaabta social mediaha iyaguna isticmaalaya. metaverse waa caalam qurux badan, waa duni labaad oo khiyaaliya, laakiin wax kastaa dhex yaalaanuu qofku u baahdo. meel kastuu jeclaysto inuu ka tago isagiyo asxaabtiisuba way u dalxiis tegi karaan. xilli kastoy rabaan inay dhex galaana way tegi karaan. waxaa dhici doontaa dadka qaar inaysan muraayada metaverse iskaba saarin basay ugu noolaadaan dunida khiyaaliga. qofku wuxuu ku noolaan doonaa nolol riyo oo kale ah. dadka qaar ayaaba nici doonaba nolosha dhabta ah oo ka doorbidi doona metaverse. 5 sano kadib dhammaanba dunida tiknoolajiyadu way isbedelaysaa iyadoo saameynteedana wadata. haddaba daawadee metaverse sidee ayuu kuula muuqdaa? ma jeclaysan lahayd inaad noqoto dadka isticmaali doona? fikirkaagu waa noo muhiim daawade, igula wadaag xagga commentiga. waa anigoo ah Nadara Siciid. waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalkan. sidoo kale ha ka ilaawin videogan inaad like saarto, la wadaag adigoo asxaabtaada u sheer garaynaya si ay waxyaabo badan uga faa'iidaan.